السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan idiin soo gudbinayaa qiso aad u cajiib badan. qisadani waxay ku saabsan tahay ninkii uu masku u yimid isagoo tukanaya. nin ayaa jiray saalixiintii ka mid ahaa. ninkani wuxuu aad u jeclaa inuu dadka ka fogaado si uu banaanada Allah ugu soo caabudo keligii. maalin maalmaha ka mid ayuu waqtigii salaada u soo galay isagoo kayn dhex jooga. isla markiiba wuxuu bilaabay inuu salaada u diyaar garoobo. horeyna wuxuu ka bilaabay weyse qaadasho, kadibna wuxuu u dhaqaaqay xaggii ay sijaayadu u taallay. wuxuuna guda galay salaad aad u xeel dheer oo uu aad ugu nagaaday. ninkaas saalixa ah isagoo salaaddii ku jira ayaa si kadisa wuxuu hortiisa ka arkay mas aad u weyn. isla markii ay ishiisu qabatay maskii aad ayuu u argagaxay oo u naxay, ilaan waa qof bani aadam ahe. haddana wuxuu ka xishooday inuu gooyo salaaddiisa Allah subxaanahu wa tacaala hortiisana uu ka dhaqaaqo. se isla markiiba wuxuu horay u sii watay salaaddiisii. maskiina hortiisa ayuu maray isagoon dhibaateen waxna yeelin ninkii. qisadan waxay noo tilmaamaysaa markastood Allah subxaanahu wa tacaala aad talada u dhiibato, kalsooni dhab ahna aad ku qabto awooddiisa Allah subxaanahu wa tacaala inuu ku ilaalinayo, wax kastoo dhib ahna uu kaa badbaadinayo. laakiin annaguna laga doonayo inaan yaqiin dhab ah Ilaahay aan ku qabno. markastana niyadda ku hay in Ilaahay wuxuu kuu soo qoray uun ay kugu dhacayaan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa kariimka ah wuxuu ku leeyahay: qul lan yusiibanaa ilaa maa kataba Allaahu lanaa huwa mawlaana wa cala Allaahi falyatawakkal ilmu'minuun. oo micnaheedu yahay waxaad dhahdaa naguma dhaco wax Allah inoo qoray mooye, isagaa gargaarahanaga ah ee Ilaahay una tala saarteen mu'miniintu.